maantay kulankan shirka jaraa'id aan isu kiniyeeray waxa uu ujeedadiisu ahaa inaan fartiin la wadaago shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis sidoo kale inaan dareenkay ku cabir xaaladda dalka uu maanta marayo qodobka ugu horeeya aan rabo inaan ku bilaabo waxa ay tahay waxaan marka hore ka tacsiyeedanayaa dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay amba u dhintay cudurka caabuqa ah cudurkaas wuxuu naga qaatay dad aqoon leh karaamo kula shacabka Soomaaliyeed fikir badan ka haysta dalka waxa had u il daran dad badan oo aad u jecelnahay qoys kasta iyo family kasta ayuuna taabtay cudurka caabuqa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa dadka hadda u il daran inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii dhimatana jannada ka waraabiyo waxaan kaloon rabaa inaan mahad ballaaran u celiyo howlwadeennada caafimaadka meel kasta ka joogan dalka naftooda u horay naftooda qatar u galiyay in ay difaacaan amba ay ka hortagaan caabuqan dilaaga ah ee dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin waxaan sidoo kale u mahad celinayaa ruuta ganacsiga Soomaaliyeed iyo shirkadda Hormuud oo kamid ahaa hay'adaha sida tooska isaga xil saaray in ay ka hortagaan caabuqa iyo dhibkiisa waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inkastoo hadda la sheegayo inuu laga yaabo inuu sii bato caabuqa in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay aad uga taxadaraan faafidda amba wax u yeelka cudurka la imaan karo waxa kale oo rabaa inaan wax ka iraahdo iyadana dhibaatada baan ka taagan qaybo kamid ah dalka sida wala socotaan deegaanada kamid ah gobolka Gado qaybo kamid ah gobolka Koonfur Galbeed dawlad goboleed Koonfur Galbeed iyo qaybo kamid ah galmudug waxa ka jiro roob raagay oo roobkii oo raagay amba xilligiisa ku imaan taas oo keenta baahi badan oo oon dhimasho iyo raad loo dhinto ayadana Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob ummadda siiyo waxaan kaloon Ilaahay ka baryaynaa culayska inuu ka dulqaado waxaan suugu baaqayaa Soomaalida meel kasta joogan in wixii ay heli karaan oo dhaqaale ah amba wixii hanti ah ay heli karaan inay ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan walaalahooda ay ku deeqaan ha noqoto arinta caabuqa amba ha noqoto arinta la xiriirto abaaraha amba waxa lagu tilmaamo oonka xun ee hadda wadanka ka jiro sida wala socotaan xaaladan iyada ah ee labada haddaan ka hadalnay waxay ku soo aaday xaalad aad u xun ee dalku maray siyaasad ahaan isfahm la'aan ismaqal la'aan iyo walwal badan oo ka jira siyaasadda Soomaaliya waxaana jirto in markii ugu horeysay ma aha markii ugu horeysay aan iraahdo 12 sano u dambeysay amba 14 sano u dambeysay dawladnimada Soomaaliya 4 sano markii la gaaro waa isqabsanaa marka damad ajnabi baana soo dhaxgala waxaan rajaynaynaa in arinta ka baxnay laakiin nasiib xumo maanta inuu jirtaa waxaana nasiib xumo ah in gacan saddexaad intaan aniga is aamin weyno aan ka doonno inay xal arinta Soomaaliya u gasho arintaasana waxay keentay in maalmaha soo socdo shirka dhici doona magaalada Muqdisho shirkaas oo ay qaban qaabadiis lahaayeen beesha caalamka ama beesha lixad dadka Soomaalida u yiraahdaan maadaama anaga aan diidnay amba aan awood u weelnay in anaga wada hadalno arintaas aad bay xanuujinaysaa waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed meel ka sii joogan inay xanuujinayso anagoo dawlad ah anagoo soo jirnay anagoo qadiyad leh in maanta ay timaado waxa iyada la mooraan inaad ogaataan isqabqabsiga jira la isku haysta ma aha mid ku dhisan laga soo bilaabo sanadkii 2019 ilaa maanta aan joogno shirar joogta la isugu imaanay cid ka soo Soomaaliya way ogtahay shirarka la isugu imaanay intooda faraha badan leh waxay ahayn dana shakhsiyadeed ma ahayn dano ay leeyihiin amba loogu danaynayo ummadda Soomaaliyeed marka danta shakhsiga laga hadlayo way adag tahay in la isku tanaasulo qofka wuxuu sheeganaa awood iyo aqli wax shaqeynaya iyadana ma aha arintaas walwal badan ay igu haysaa aniga oo laftiga kamid ah dadka mucaaradka ah ee xildoonka ah laakiin waxa ii muuqato walwalkaas iyo iska warhayn la'aantaas amba waxda qaybsan la'aantaas ayaa waxay sii dhalinaysaa in xaaladda hadda aan ku jirnaa ay sii horto dadka Soomaaliyeed meel badan ay ka joogan caalamka waxay hadda daawanayaan amba si toos u fiirinayaan shirka soo socda waxa ku imaan doono waxaan ugu baaqaynaa
madaxda ku shiraysa magaalada Muqdisho in ay u tanaasulaan ummadda Soomaaliyeed inay waqti geliyaan amba ay habal la joogo oo san shirka ku dhamaan shil ku yimid guuldaro sababtoo ah rajada laga qabo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ka joogaan ay ka qabaan ayay muhiim u tahay waxa kale oo la mooraan ah dawladda xilkeeda dhamaaday waqtigeeda dhamaaday inayan u isticmaalin awoodda dawladnimada inay ku muqooniso amba qasab ku qasabto mucaaradka ama shacabka Soomaaliyeed inay qaataan talada ay ka go'antaa kaliya amba fakarka ay uga aaminsan yihiin dadka Soomaaliyeed federal way ayaa lagu heshiiyay qabiil baa wax lagu qaybsadaa qabiil xooga kara ma laha in la isku xushmeeyo la isku qadariyo ilaa ma aan ka gaarayno xilli qof iyo cod ay dadka Soomaaliyeed yeeshaan waxaan maalmahan aan intii aan xaaladan socdo waxaan arkaynay madax badan oo ka tirsan dawladda madaxdii hore ah madaxweynayaashii hore ku jiraan oo hadalla carale ka dhahay idaacadaha xaqiiqdii markii adigoo mas'uul ah lagu diido fursad amba dawladnimada laga yeesho mararka qaar waxay keenaysaa xagatin bay abuuraysaa waxay dareemayaan in aan dawladnimadii laga xigsaday dawladnimada dadka ka dhaxaysa waa loo soo dhintay waa loo soo baaba'ay aniga waxaan goobjoog u ahaa magaalada Muqdisho iyadoo oo qofka shaqaalaha ah ee dawladda u shaqeeyo oo asagoo mataqaana madaxa borqada bahashile madax la gashanay ku dhuumanay xafiiska u tago waxa lagu dilay dhalinyaro yar oo jaamacada ka baxay inay xafiis dawlad u shaqo tagaan dad baa dhiigooda ku baxshay dadkii dhiigooda ku baxshay damaca kaga jiray bahashii dib in loo soo yaglaalo maanta in loogu jawaabo waxay soo dhiseen amba ay soo gubteen in loogu jawaabo qaab ka duwan qaabkii ay mudnaayeen qalad ayaan u aragnaa waa laga fiican yahay marka sidaas daraadeed waxaan ku baaqayaa maanta oo kamid ahaa shirka jaraa'id aan qabtay inaan isku tanaasulno Soomaaliya way naga weyn tahay Soomaaliya shakhsi way ka weyn tahay 15 milyan oo qof ayaa maanta waxay ku jiraan xaalad aysan ogeyn mustaqbalka dalka intuu u socdaa dadkii ka walwalsanaa ee ka fakiri lahaana mid buu eeganayaa asagoo aaminsan inuu mid ka arsado qof xasuusanaya mar wiilka dhimanaya ee magaalada afgooyo banaankeeda caawa xabadda ku dhacayso ee wadanka difaacayo dhalinyarada jaamacadaha ka baxay ee raba mustaqbal yeeshaan cid ka fikiraysa ma laha xaalad waxaan galnay aad u xanuun badan xaaladda marka xaalad la qaadan kara ma ah in la isku tanaasulo shirkana natiijo ay ka soo baxdo waxaan rabaa inaan sidoo kale mahadcelin u muujiyo oo si toos ah ugu mahadceliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo caawa iyo habeenii maalin galab iyo subax u soo jeedo difaaca dalka dad baa caawa waxay ku dagaalamayaan maxaa noqdaa kursi maxaan ka helaa iyo waxay ku dagaalamayaan aniga maxaa noqdaa wiil dhalinyaro ahna naftiisa ayuu mataqaana ku difaacaya u bixinaya qaranka si loo difaaco aad iyo aad uga mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeedna abaal bay u haysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu dhibka ka bari yeelo ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan la hadlo dawladda xilkeeda ka dhamaaday iyo mas'uuliyiinta mucaaradka ah oo laftigeegan ka mid ah adduunka markii la fiirsho markii laga hadlayo horumarka adduunka maanta meesha uu gaaray sida ula socotaan madaxweynayaashii hore wadamada caalamka aan ka soo qabanno wadanka Ghana prime ministerkii ugu dambeeyay Kenya ka ahaa Jilinaagta madaxda ka ahayd Finland ka madaxweynaha ka ahaa Obasanjo Nigeria marka xukun ka tagaan iska daa dalkooda dibadda loo isticmaalaa in nabadiisa ka shaqeeyaan waa loo yeeraa waa lagu sharfaa Thabo Mbeki hadda wuxuu dhaxaadinayaa Congo iyo dhibaatada ka jirto ama dagaalada ka yimaado sababtana wax kale ma aha xushmada iyo karaamada xafiiska soo qabteen ayaa yeelaya dadka ayaga in la isticmaalo marka madaxweynaha ama dawladda xukun ka dhamaaday hadda waqti ka dhamaaday iyo musharaxiintii hadda jirta madaxweynayaashii hore ah waxay ku fiicneed xilligan oo kale inay ka shaqeeyaan in nabadda la isku adeegsado in awoodeenna iyo caqligeenna iyo taladeena u adeegsano in wadankii Soomaaliya aan ku badbaadino laakiin maanta in laga hadlo caadifad qabiil iyo caadifad dagaal iyo kala argoosi iyo isdaba ceersasho mana qabato anagoo dhan madaxda soo ahaan jirta xushmad iyo karaamo iyo qadarin ay leeyihiin qadarintooda xushmadooda iyo talada ay ku leeyeen dawladnimada loo ogolaado waa si wadankan wax ugu qabtaan caalamkana karaamada u geeyaan
madaxweynaha hore Soomaaliya markuu wadanka la tago oo wax noo qabto magaciisa isticmaal sharaf inoo tahay asaga wadanka dhexdhexaadiyay anagoo qayb ka noqonay nabadaasi kamid tahay marka waa lama huraan in la isku soo celisho on fursada la abuuro labada dhinac la isaga yimaadaan ugu dambeyntii waxaan rabaa in anagana baaq u diro dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka saa ula socotaan 30% 70% ay raahdo iyo ka badan daawdooda waxay ka yartaa 30 sano idinka kamid dhalinyarada ah waxa caaw laga tashanayo mustaqbalkiina waaye waa mustaqbalkeena guud waxaan dhalinyarada ugu baaqayaa rajadu ma xuma wadankan dhibaatada uu ku jiro waa ka bixi doontaa waxaana noo suurgali doontaa in idinka aad hoggaanka qabataan askariga dhimanaya ee qoriga wata ay jooga magaalada banaankeeda shabaab difaacaya mid ka adkaanayo waa wiil dhalinyaro ah daadiisa ka yartaa 20 sano ilaa 5 sano kan media ka shaqeynaa daadiisa aad bay u yartahay kan wasaaradaha ka shaqeynaa waa sidoo kale wadankan dadkii iska lahaa dhalinyarada waayo in laga qayb geliyo geed socodka nabadana muhiim waayo waxyaabahan aad ugu taamaya bay kamid tahay shakhsiyan oo aan doonayo markii ugu horeysay in dawladnimada iyo talada dalka la soo geliyo ay qayb ka noqdaan dhalinyarada haddii kale awoodan iyo wax qaybsigan socdo ma shaqeyn doono haddii Ilaahay raali ka dhigo madaxda hadda hoggaanka noo haysa ee waqtigeedu dhamaaday waxaan rajaynaynaa inayan ummadda Soomaaliyeed u diidan inay codkooda dhiibtaan waxa la yiraahdo oo u ogolaadaan inay hadlaan cabiraan fakarkooda dastuurka qoraayo waxa laga yaabaa laga fakir duwan yahay waa laga karti badan yahay waa laga aqoon badan yahay waa lagu fikirkaaga mid ka duwan mid lamida la haysan karaa laakiin muhiimaddu waxa ay tahay in la xaqiijiyo in qofka Soomaaliga awood u leeyahay inuu hadlo mana lagu celin karo qofka Soomaaliga waa la isku day hore u shaqeeyay in loo ogolaado dadka Soomaaliyeed mudaharaad xaq ah mudaharaad ay doonayaan inay aqligooda aragtidooda ku bedelaan haddii taa la ogolaano waxay isku bedeli doontaa dhibaato ka imaanayso siyaas daraadeed waxa la yiraahdaa adduunka marka laga sheekeynayo siyaasadda caalamka fashilka ugu weyn ee ku yimaada hoggaan wadan waxa uu yahay markuu ciidankii hoggaanka lahaa dalka lahaa uu adeegsado dadka gudaha waxay dhaawacaysaa karaamada iyo qadarinta iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed dhibaato gaarsiinaysa waxaan qabaa marka dadka ka soo horjeeda dawladda waqtigeeda dhamaaday ee mucaaradka ah iyo dawladda hadda waqtigeeda dhamaaday labadaba iyo musharaxiinta dhan oo aanay qayb ka nahay in aqligeena inta isku keenno dadka Soomaaliyeed isku soo dhaweyno annaga u noqono isku soo dhawaansho ay timaado maadaama hadda aan ku qasbanaanay in wadamo saddexaad amba hay'ado saddexaad ay hoggaankii dalka iyo taladii dalka u cararna aniga maadaama aan heshiis weyn waxaan rajaynaynaa si ceebteen Ilaahay u asturay ceebta ummadda Soomaaliyeed inuusan ka ku dhamaan fashil guuldar ay ka soo baxda natiijo ay ka soo baxda doorasho maqsuud lagu yahay doorasho raali lagu yahay doorasho la wada leeyahay